dhalinyaro ku labisneed shaarar cadcad, saraawiil madow iyo seefafka boqortooyada ayaa galbinayay lamaanahan oo arooskooda laga garaacay astaamo qiiro leh. wuxuu ahaa aroos ka duwan kan inta badan ka dhaca Muqdisho. waxay u muuqaal ekeed xaflad soo dhaweyn ah, balse ma ahayn. waa arooska Xasan Maxamuud Cadow iyo Hodan Maxamed Yaxye oo ka mid ah saraakiisha dhawaangalka ah ee ku biiray booliiska Soomaaliya. hayse ay ka muuqdeen wadaniyad iyo astaamo cajiib ah iyo gaadaka ciyaar ayaa lagu soo bandhigay. 24 saac kadib arooskiisa Xasan ayaan weydiiyey waxa uu dareemay inta lagu guda jiray fantasiyaha iyo dabaaldegga xafladiisa. ولا شعرت هذا الكعسنات لما قياس كان الحالة دي سيدة شخص والدرين والجلدات وكجرنا والدرين كلام يوم الوجود والقدرين يا حادث استاجد هو شخص والدرين والجلدات كنت تجيب جسد من الدرين معي. الحمد لله هو فكري إن بدل أن فكري أي حمل يجرؤها إن أسوق الديو لأن أنت سوماليا ما تي خارقوا الحالة وكجرنا الفكرة تقدروا أن يصير قوة كسكع عرّا بدأ هذا يعني qaab tusaale fiican ah oo qolaha mid ku fikir jiray. sawirada laga soo qaaday arooskan oo aad ugu baahay baraha bulshada ayaa dadku hadal hayeen. ammaan iyo duco ayaa la hooyay lamaanahan. Xasan wuxuu ii sheegay inay ugu dhigneed maalin wacan oo wanaagsan. waxaa leeyahay inta hawadiisa oo dhisay hambaliyada iyo dawladda waa ka qabaa kullu ku jirno waa mahadsantiin anigu kale fursadan halkee TV maanta ugu soo booqtay magaalada Muqdisho. fursad kale ay tahay dadkii maadaama ka gaari karin baraha bulshada malaayiin Soomaaliyeed oo caalamka kala joogtay ugu soo tahriibayso hal in aan ugu jawaab celiyo waxay ii tahay fursad kale timaantay halkee wadani xafad ugu yimaado si aan markay dadkaasi u dhawaaqo mahadsantiin waa la bogaadintiina. Kabtan Xasan Cadow iyo afadiisa waa kuwo ku faraxsan hab maamuuska loo sameeyay xafladda arooskooda oo hadda noqotay tan ugu hadalhaynta badan Soomaaliya, taas oo wax badan ka duuneed xafladaha arooska ee ka dhaca Soomaaliya. waxayna dhiirigelin muuqato u tahay askarta iyo saraakiisha ku biiraya ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Qur'aanka Kariimka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida ayaa amaanay guurka oo ah himilada qof walba oo dhalinyaro ah, caafimaadna qaba. Ibrahim Xaaji Yuusuf, Telefishinka Hon Cable, magaalada Muqdisho.